Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ahaa dhibano lagu jabiyay gurigiisa oo ku yaala magaalada Barcelona Isniintii dhacna loo geystay. Kooxda La Liga ayaa u xaqiijisay The Sporting News in weeraryahanka iyo qoyskiisa ay bad qabaan kadib dhacdadii ka dhacday gurigiisa oo ku yaala Castelldefels saacadihii hore ee Isniinta. Booliska Catalan ayaa hadda baaraya sida laga soo xigtay daawacada Isbaanishka ee El País. Aubameyang oo 33 jir ah ayaa kaliya ku soo laabtay gurigiisa kadib guushii ee Barcelona 4-0 kaga badisay Real Valladolid isagoo ahaa bedel aan la isticmaalin. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Gabon ayaa qayb muhiim ka ahaa kooxda Barcelona xilli ciyaareedkii hore, laakiin waxa uu hoos u dhacay heerkii ugu sareeyay xilli ciyaareedkan kadib imaatankii Roberto Lewandowski. Jariirada El País ayaa markii ugu horeysay soo wareysay Isniintii August 29 in Aubameyang uu u ahaa dhibano wax daawacada ku tilmaamtay dhac rabshado ah oo ka dhacay gurigiisa oo ku yaala Castelldefels, xaafad hodan ah oo ka tirsan Barcelona caana ku ah ciyaartoyda kubadda cagta. Sida laga soo xigtay El País, ugu yaraan 4 nin ayaa soo weeraray guriga Aubameyang abaarkoodii subaxnimo waqtiga maxalliga ah. Nimanka waxay u hanjabeen Aubameyang iyo xaaskiisa oo ay jirdil u geysteen weeraryahankii hore ee Arsenal. El País ayaa sidaas tiri iyadoo ka soo xigatay ilo booliis ah. Lamaanahan ayaa lagu qasbay in ay furaan meel kayd ah taas oo tuugada la sheegay in ay ka qaateen dahab ka hor inta aysan goobta ka baxsan iyagoo wata baabuur. Barcelona way awoodi weyday inay xaqiijiso tafaasiisha saxda ah ee ay u wariyeen El País iyo jariirado kale, laakiin kooxda ayaa u sheegtay The Sporting News iyo warbaahinno kale in Aubameyang iyo qoyskiisa ay fiican yihiin hadda oo ay bad qabaan dhacdadii kadib. Mossos d'Esquadra oo ah booliiska gobolka Catalonia ayaa lagu soo waramayaa inay fureen kiis baaritaan ku saabsan arrinta tuugnimada. Aubameyang ayaa u saxiixay Barcelona bishii Febraayo ee la soo dhaafay kadib markii qandaraaskiisa Arsenal lagu soo afjiray ogolaansho labada dhinac ah. U saxiixidda mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee Yurub ayaa racfaan muuqda u qabatay ciyaaryahan markaas 32 jir ahaa, laakiin ma ahayn wax fudud inuu ku biiro Barca. Khalalaasaha kooxda ee garoonka ka baxsan iyada oo ay jirto dhibaatooyin dhaqaale iyo isbedel ku yimid madaxweynenimada oo ay wehelisay soo laabashada Xavi oo isku dayaya inuu wax ka bedelo nasiibkooda garoonka. Waxay la mid tahay in heshiiska Aubameyang uu mar walba dareemayo doorasho waqti gaaban ah. Sidaas oo ay tahay, Aubameyang ayaa si fiican ugu soo bilowday Camp Nou isagoo dhaliyay 12 gool oo horyaalka ah 13 kun oo ku soo bilowday xilli ciyaareedkii hore. Muddadaas waxa uu ku jiray kaalinta toddobaad marka loo eego goolasha laga dhaliyay 5 horyaal ee ugu sareeyay Yurub, hal goolna ka hooseeyay Roberto Lewandowski iyo Harry Kane oo dhaliyay 12 gool. Celceliska gool dhalinta Aubameyang oo ah eber 91 gool 90kii daqiiqo ayaa ka dhigay kaalinta shanaad ee Kylian Mbappe, Moussa Dembele, Karim Benzema iyo Christopher Nkunku oo kaalimaha hore ku jira. Aubameyang ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda Barcelona suuqan, iyadoo Catalans ay Lewandowski kaga soo iibsatay Bayern Munich adduun dhan 45 milyan oo euro. Xiddiga heerka caalami ee dalka Gabon ayaa u suurtoobi weysay inuu ku soo bilaabo shaxda Xavi. Kooxda ayaa sidoo kale doonaysa inay yareyso mushaarka oo ay dib u soo ceshato xoogaa lacag ah iyada oo loo marayo iibinta ciyaartoyga. Chelsea ayaa muddo dheer lala xiriirinaya inay dalab ka gudbisay ciyaaryahanka inkastoo uu xiriir la leeyahay Arsenal. Tababaraha Blues Thomas Tuchel ayaa Aubameyang kala soo shaqeeyay Borussia Dortmund, wuxuuna aad ula dhacsan yahay ciyaaryahanka, halka Romelu Lukaku uu dib ugu laabtay Inter, taasoo ka dhigtay in kooxda Premier League ay u hanqaltaagto inay qorato weeraryahan cusub. Manchester United ayaa sidoo kale lala xiriirinaya inay dalab ka gudbin doonto ciyaaryahanka ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda usbuucan. Red Devils si la mid ah Chelsea ma haystaan dooqyo badan oo ugu ciyaaro booska lambar 9 inkasta oo ay kooxdooda ku jiraan xirfadley badan oo weerar ah. Haddii uu Cristiano Ronaldo ku guuleysto in uu ka tago Old Trafford, Man United ayaa laga yaabaa in ay u soo jeesato Aubameyang. Chelsea ayaa sii wada mashquulka suuqa kala iibsiga xagaagan, waxaana ay kooxda u muuqataa in ay sii wadi doonto baacsiga bartilmaameedyada ilaa maalinta ugu dambeysa. Nidaamka cusub ee Todd Boehly ayaa durba si kal iyo laab ah u taageeray tababara Thomas Tuchel saxiixyada Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly iyo Raheem Sterling, halka da'yarta mustaqbalka leh ee Carney Chukwuemeka, Cesar Cesseday iyo Gabriel Solonina sidoo kale lagu helay heshiisyo joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, Tuchel ayaa isha ku haya inuu dib u soo nooleeyo kooxdiisa isagoo bartilmaameedsanaya dhowr waji oo Premier League ah si uu ugu guuleysto tartan dhab ah. Chelsea ayaa Wesley Fofana u dirtay USA si uu tijaabada caafimaadka ugu maro ka hor inta uusan 75 milyan oo gini uga soo wareegin Leicester City. 21 sano jirkan qadka dhexe ayaa ahaa mid ka mid ah mudnaanta ugu weyn ee Thomas Tuchel inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, isagoo doonaya inuu bedelo Antonio Rudiger oo baxay iyo Andreas Christensen kuwaasoo u dhaqaaqay Real Madrid iyo Barcelona. Ugu dambeyntii, iyadoo 3 maalmood oo kaliya ay ka harsan tahay waqtiga kama
dambaysta ah Chelsea waxay ku qanacday dalabaadka Leicester tegitaanka Lukaku iyo Werner kooxda Chelsea waxay ogaatay in boos gaar ah oo weerarka dhexe uu ka maqan yahay soo laabashada London ee Aubameyang ma laga yaabaa inay macno sameynayso weeraryahanka reer Gabon ayaa ka tagay Arsenal kadib markii laga xayuubiyay kabtanimada horaantii sanadkan laakiin waxa uu ku riyaaqay nusxil ciyaareed wax ku ool ah oo Barcelona imaatinka Roberto Lewandowski ayaa Aubameyang hoos u dhigay shaxdiisa si kastaba ha ahaatee Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay go'aamisay qiimaha ay ku iibinayso iyadoo wada hadal kula jirto Chelsea Aubameyang ayaa weli ah bartilmaameedka koowaad ee kooxda Chelsea ayaa ku riixaysa inay dhameystirto heshiiska kadib markii uu xirmay suuqa kala iibsiga sida laga soo xigtay jariirada The Guardian laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in kooxda ay dib u dhigtay mushaarka badan iyo qiimaha ay ku dalbanayso Barcelona ayaa ku doonaysa 30 milyan oo euro sida laga soo xigtay Football Insider Chelsea ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa daafaca aadka loo qiimeeyo ee kooxda Peterborough Ronnie Edwards kadib markii ay indha-indheeyeen ciyaartii ay dhawaan la ciyaareen Derby County Tottenham iyo Crystal Palace ayaa durbadiiba diiwaan geliyay xiisaha ay u qabaan da'yarka iyadoo Palace ay aragtay dalab 4 milyan gini ah oo laga soo diiday Callum Hudson-Odoi ayaa u muuqda mid ka tagaya kooxda isaga oo amaah ugu tagaya Bayer Leverkusen inkasta oo ay kooxo kale xiiso u qabaan sida laga soo xigtay Sky Sports Hudson-Odoi ayaa tijaabada caafimaadka mari doona Isniinta Chelsea ayaa diiday dalabyo muhiim ah oo kaga yimid Bayern Munich markii uu 22 sano jirka ahaa Hudson-Odoi laakiin waxa uu ku guuldareystay inuu maamulo boos joogto ah oo uu ka hoos ciyaaro Tuchel waxaana uu isku dayi doonaa inuu dib u bilaabo xirfadiisa xil ciyaareed ee Bundesliga ciyaaryahanka kale ee da'da yar ee ka tagi kara Chelsea ka hor inta uusan xirmin suuqa waa Ethan Ampadu kaasoo laga yaabo inuu amaah ugu biiro Serie A laakiin Trevor Chalobah ayaa sii joogi doona Stamford Bridge inkastoo uu wada hadalo la yeeshay kooxo badan oo reer Yurub ah oo ku saabsan suurtagalnimada amaah